taliyaha ciidamada badda ilaalada xeebaha dalka Soomaaliya Admiral Guuti Cabbaas Amiin Cali ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay doontii ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ee dhawaan ku degtay meel u dhow xeebta degmada Cadalle. Taliyaha waxa uu sheegay inaysan jirin cilad weyn oo ku timid doontaasi iyo inay waxyeelo dhimasho ah ka soo gaartay ciidamo ka tirsan dawladda ee saarnaa kuwaasi uu sheegay inay raashin u wadeen magaalada Hoobiya ee gobolka Mudug. doontaasi waxay ahayd ciidan degan sidaba loola socdaba Hoobiyo ayay waxay u geysay raashinkan xaq ay u leeyihiin. doontuna waxa waaye ciidanku way isticmaalaan meel kastoo ciidankayga joogaan way u geynaysaa, waana wax sharci wax loo dhisayna way ka mid tahay. ha ahaato dad baa si xun fasir uga bixiyay ayadoo taasay jirtaa la yiri haddana doontii waxay ku gadoontay badweyn dhexdeedii. waxaan dadweynaha u sheegaynaa iyo intii warkaas soo tabisayba inaan warkaasi aan sal iyo asaas midna lahayn, in warkaasi aanan waxba ka jirin. doontaasi wax kastoo socda ama markab ha noqdo ama diyaarad ha noqoto ama tareen ha noqdo baabuur ha noqdo wixiiba bir ah cilladu way ku timaadaa. doontu cilladaa ku timid matoorka xaggiisii ah, tiina waxa waaye waa laga samata bixiyey oo wax dhibaato gaaray ma laha, cidna yacni nagaga dhimatay ma laha, wax gadoomayna ma laha. ugu dambeynna wuxuu sheegay in doontaas iyo doon kale oo gurmad ahaan ugu direen ay haatan ku sugan yihiin xeebta degmada Cadalle, isla markaana maanta ay soo gali doonaan ciidamadaasi magaalada Muqdisho. doontii maanta ayadoo nabad qabta iyo doontii aan u dirnayba oo gurmad ahaan ugu dirnayba waxay wada fadhiyaan Cadalle wada joogaan. maanta inay soo galaan xamar ayaan aad u rajaynaynaa ay soo gali doonaan. dadkii meesha jirayna oo la socdayna dad yani nabadoodii caafimaadkoodii qaba waaye. Cadalleyna maanta ku sugan yihiin. idaacadaha qaar baa buunbuuniyo yiri doon baa gadoontay, doon baa lagu dhamaaday. ilaa hadda khasaare lama oga, wax dhintay iyo wax gadoomay iyo wax khasaaro anaga xaggayga ciidanka badda ka dhacay ma jiraan. Ismaaciil Aadan Bariise, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.